Waxaa soo badanaya cabashada ka imaanaysa Soomaalida degan North Minneapolis oo la xiriirta amni darro kuwaasoo loo geysto dhac iyo boob had iyo habeenba. Soomaalidan oo u badan haween iyo caruur ayaa hadda aysan ka soo bixi karin guryahooda sababo la xiriira ammaanka awgeed. Haddaba, qaar ka mid ah Soomaalida ka cabanaysa amni darrada ayaa Nabad TV u sheegay dhibka iyo dhaca ay maalin kasta la kulmaan isla markaana aysan jirin wax gurmad ah oo ay ka heleen booliska. Xaaladda amniga magaalada Minneapolis ayaa faraha ka sii baxaysa waxayna arrintan bilaabatay tan iyo bishii May sanadkii 2020. wax seef ma haysano baabuurtii carruurta ku jirta la cararay maalba baabuur baa la qaataa everyday dadka shaqada aadaya xataa habeenkii shaqada way joojiyeen manaajiriintuna waxba way ka qaban laayihiin alveer gudihiisana lagu soo galaa oo bistooladna lagu qabtaa soo bari markaan dhiman waxba nooma qaban kartaan dadkaan doorano maanta hadaad noo hadli weydaan bari markaan dhimannahay imaanina meeshaan ku dhammaanay waxa weeyaan meeshaan inta waa ku dhammaanay aadaan ugu dhammaanay wax naga celinay ma jirto waxaan u badannahay haween iyo ciyaal iyo odayaal dhalinyar naguma jirto ilmiyo gaari ku jira laga carray everydayna weeyaan wax bil haday dhacdo waa samri kartaa sanadka dumar dhac waa samri kartaa laakiin shanta bari Monday to Friday maalba gaari baan laga carray maqribkii meesha lagu gaaro 5 hadda kulligii ma soo bixi karno adeeg ma soo doonano caano ma soo doonano hana laga soo gaar dadka doorano waxaan rabnaa dhibkeena in loo gudbiyo dawladda iyo dadka maalin mar walba aan doorano xilliga doorashada dhacaysa dadka aan doorano inay noo yimaadaan arrimaheena dhibaatadayna arkaan gabdho badan la qalay dad waxa jira ciyaalkiyo gaarigi ku jira gaarigi lala cararay maalin walba waana la gumaadaa annaga gabdho masaakiin aan nahay dumar aan u badannahay dad waayeela iyo dad curyaamiina marka awood aan wax isaga difaacnana ma haysano hubna ma haysano wadankeena waxa uga soo tagnaa ammaan darro iyo cabsi meesha aan hadda joogno oo aan rabnay in ammaan ku helnana waxaan kala kulanna dhibaato iyo khalkhal banaanka kama soo adeega karno masaajid waa mar horeba noogu dambeysay iyo banaan u bax waxa dhacday faayirka guriga waa la daaraa cid noo timaado naga daminaysa ma jiro dad wheelchair oo habeenkii ximbaar u baahan oo caawimaad jira guriga dhan nalkiisa waa lagu damiyaa banaanka markaan u soo baxno sigaarana lagu daadiyaa habeen iyo maalin ooyini walwalaan ku jirnaa annagu haddaanu nahay dadka xaafadan degan waa dhibaataysanahay waxaan u dhibaataysanahay waa dad degan Minneapolis ama meel kale ka yimaada gobolka haduu dhaco xaafad way u gari weyday aniga bidinka dheer laba gabdhood aan dhalay baa degan aniguna tuubaan deganahay habeenkii afurkii markay ay haday aqalka igu yimaadaan way seexdaan banaanka looma baxayo waxa loogu bixi waayay niman baabuurta baakinada ku soo galay baabuur bay wataan kii aqalka degan iyo kii soconaya ma kala fahmaysid waliba bidinkan dheer bidin wan waa dhibaataysan yahay wiishka dhaxdiisi baa lagu baaranaya haday booso tahay haday lacag tahay haday tahay gaarigaagi haday tahay naftaadi bal adiga qof xanuunsan haduu doono dhiikar buu qabaa macaan buu qabaa oo xabad lagu qabtay oo lagu soo galay guriga dhaxdiisi wiishka lagu soo galay naxdin baa dadkii dishay waxa weeye anagu cabsi baan ku noolahay deena waxaan malaynayaa in lagu daawanayo waayo dadka jooga ka mas'uulka ofiskan dad mas'uul qaadaya maaha kumbarigan gurigan muddo imika 2 sano oo kumbariga dambeynta uu joogay naftii iyo maalkiiba dhibaato badan baan ku qabnaa ubadkii banaanka looma soo bixin karo baabuurtii dumarkii baakadimada loo taagan yahay ilaa 5 ilaa 6 baabuur waa la dhacay dhibaato kale oo fara badan waa loo geystaa dadka qof dumar oo boorso wata albaabka ma soo bixi karto markii kumbariga intii ka horeysay kumbarigii hore gurigu seefti waa sukuur adag buu lahaa banaanadaas habeenkii la iska caweyn jiray baabuur lama dhici jirin qof boorso lagama qaadan jirin laakiin kumbariga dambe intuu yimid guriga iyo dad iyo naf waa khatar baan ku suganahay Soomaalida degan anagoo dhib weyn baan qabnaa apartmentiga dhamaantood maalin walba gaariyada la qaadanaya ma bixi karo albaabada isma taagi karo xataa baashi dharka lagu dhaqanayo maalin walba waa la fujistaa albaabada waa la jabsadaa waxaan u baahanahay ma soo qabsan karo dhibaato aad weyn baan haysataa waxaan ka codsanaynaa qolada ay qusayso ee guryaha ee dadka caawiya lacagta ka bixiya inay soo gaaraan inay caawiyaan baan aad iyo aad uga codsanaynaa safety-geenu wuu xun yahay maalin walba gaari baa la qaadanaya baaskoolad baa la nagu qabanaya midida la nagu qabanaya safety-geenu habeen iyo maalintoona wadnahan farta ku hayna ilmaha iskuuladii lama saari karo alifbeetarkii baa dadkii la isku dilay la isugu soo galaya please waxaan u baahanahay dawladda iyo cid qusaysaba in la nacaawiyo insha Allah bilika ayaa wax ka deganahay dhibka ku qabna waxa waaye niman madow ah ayaa parking-ka imaanaya oo xabado wataan oo ma taqaanay dhowr qof ma taqaanay ka qaateen ma taqaan baabuurti ka qaateen
baabuurtii ay la cararayaan baarkinkay ku jiraan ewel habeenkii sheekadeeda hadda maalintii cad shalay anagoo taagan ayaa gabdho laga qaatay oo buildingka degan maalin cadeey sheekada ku soo aruurtay ewel habeen kaliya ahayd marka lama soo bixi karo managerka waa u sheegnay waxa ku dhaana anaka lacag baa bixinaa guriga ma taqaanaa lacag baan laga qaadaa kirana laga qaadaa safety hadaan ku dareemin why are we paying the money we don't have safety here so waxa u baahanahay ma garanaysaa in ma taqaanaa oo wax laga qabto meeshaan inta ma taqaanaa dad aan ma taqaanaa lagu dilin ama dib inta ka weyn uusan ka imaanin Allahumma salli ala sayidina Muhammad aniga oo ah Abdi Majid Sheikh Muhammad kana mid ah dadka degan apartment preview magaalada Minneapolis North Minneapolis ayaa waxaan ka cabanaynaa dhibaato badan oo na soo wajahday muddo ilaa imika sanada waad aragtaan shacabkii way soo wada baxeen waxa weeyaan waxaan ka cabanaynaa ilaa 20 baabuur ayaa mar walba la qaataa oo kii ugu dambeeyay shalay toole ayaa maalin cad la qaatay waxa kale oo la sameeyaa habeenkii baa lagu qabtaa baaskoolado waxa lagu qabtaa mindiyo haweenkii caruurtii iskuulka aroorta la saarayay lama saari karo nabadgelyadii ayaa aad u xumaatay habeenkii iska badaa dharaartii baan meel loo dhaqaaqan jirin marka waxaan halkan ka codsanaynaa duqa magaalada iyo Hannibal County iyo cid alla cid ay khusayso iyo dadka aan dooranno sida Ilhaan Umar inay noo yimaadaan oo ay dhibka ayna haysta ayna arkaan in badan baan dacwoonay oo qaybta office-ka aan ku dacwoonay ilaa hadda wax ka qabtay ma jirto Minneapolis ayaa bilooyinkii u dambeysay la circiiraysa qalqal dhanka amniga taasoo xitaa sababtay in gudoomiyaha gobolka Minnesota iyo duqa magaalada Minneapolis ay dalmadaan ciidamada kaydka qaranka. Asmar Cabdi Nuur, Nabad TV, Minnesota.